Soomaaliya waxa ay weysay Generaal Da'yar oo ku firfircoon u adeegida qarankiisa kaasoo ku soo caanbaxay ka badbaadinta shacabka Soomaaliyeed qaraxyada ay la beegsadaan arxanlaawayaasha Al-Shabaab. Allahu naxariistay Generaal Farxaan Maxamed Aadan Qaroole waxa uu rajo iyo dhiirigelin u ahaa dhalinyaro badan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa hadda ku haminaya inay maalin uun dalkooda hooyo u adeegaan. Farxaan oo ka mid ahaa jiilka cusub ee lagu doonayay in dib loogu dhiso ciidanka xoogga ayaa si xawli ah ku soo shacbaxay kadib markii dowladda federaalka dhistay ciidanka sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano Haramcad, kuwaas oo gacan weyn ka qaatay ammaan u helidda caasimadda. inta uu hayay hoggaanka ciidamada sida gaarka u tababaran ee Haramcad waxa uu ka dhigay ciidankaasi kuwa ugu tayada wanaagsan ciidanka Soomaaliya, kuwaas oo boqolkiiba 80 yareeyay weerarada kooxda Al-Shabaab iyo ka saaridda hoteelada ay weerarada ku qaadaan. Tayada ciidanka Haramcad iyo tan Qaroole waxay cadeen u ah weerarkii ugu dambeeyay ee kooxda Al-Shabaab ku qaadaan Hotel Xayaat, taasoo taliska Niisa ku amray inay Haramcad howlgalka ka baxaan, taasoo ku qaadatay ciidamada Niisa 30 saac inay ka saaraan hoteelka kooxda Al-Shabaab. Balse waxaa mar kale loo yeeray Farxaan iyo dhalinyaradiisa Haramcad, kuwaasoo si dhaqsi leh ku soo afjaray weerarkii 30 saac qaatay. Bishii Abriil sanadkii tagay, Allahu naxariistay Farxaan waxaa loo magacaabay taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Banaadir, isla markaana waxaa hoos u dhacay ficil dambiyeedyada ka dhaca caasimadda oo leh nooc walba. Qadawacneed uu ka qabtay gobolka Banaadir ayaa bishii December isla sanadkaasi loogu abaalmariyay darajada heer generaal, taasoo ay dood ka keeneen siyaasiyiin Soomaali ah oo ka soo horjeeday maamulka uu markaasi ka tirsanaa iyo ajaanib ka soo horjeeda dib u dhiska ciidanka xoogga dalka. Siyaasiyiintaasi waxaa ka mid ahaa madaxweynaha hadda xilka hayo Xasan Sheekh Maxamuud oo markaasi tumayay durbaan qabiileed, taasoo uu ugu yeeray in Farxaan uu ku soo biiro qabiilkiisa isla markaana isaga tago adeegga uu hayay qarankiisa. Allahu naxariistay Generaal Farxaan ayaa lagu dilay qarax miino oo ka dhacay deegaanka Balcad, isagoo isla markaasi ku sii jeeday magaalada Basra, halkaasoo uu ku sugnaa taliyaha nabad sugidda qaranka Mahad Salaad, kaasoo wararku sheegayaan in uu ugu yeeray generaalka kasoo qaybgalka howlgal ay wadeen ciidamada nabad sugidda. Isku soo wada duuba, Allahu naxariistay Farxaan waxa uu horey uga badbaaday 3 isku day dil inta uu ku jiray nabad u helidda ummadda Soomaaliyeed. Inta jeer uu ka badbaaday qaraxyadaasi waxa uu watay gawaarida aan xabadda karin. Waxaa shaki iyo hadalhayn dhalisay weerarkii lagula beegtay magaalada Balcad, taasoo uu saarnaa shirka hore ee gaariga loo yaqaan Cabdibilaha. Warar iskhilaafsan oo ka soo baxay goobta uu dilka ka dhacay ayaa sheegaya in generaalka laga dejiyay gaariga uu saarnaa, kaasoo ahaa gawaarida aan xabaddu karin, isla markaana la saaray Cabdibilaha ugu horeeya ee ciidankii ku sii jeeday magaalada Basra, taasoo fududeysay in ay miinadu waxyeeleyso generaalka. Dhanka kale waxay wararku sheegayaan in generaalka la soo wacay loona sheegay inay sameeyaan miino baaris ayaa generaalka ku amray ciidankiisa inay ka degaan gawaarida, ayuu isla markaana asagana ka degay gaariga oo isla markaana si shakhsiyan ay miinada ula kacday. Qaraxa kadib ayaa ciidankii la socday generaalka ayaa ku godooday goobta uu qarax ka dhacay, ayagoo isla markaana sheegay inaysan sii joogin magaalada Basra, dibna ugu laabanayaan caasimadda ayagoo raadinayo baaritaan madax bannaan. Taliyihii hore nabad sugidda qaranka Fahad Yaasiin ayaa Mahad Salaad horey ugu eedeeyay inuu gacansaar la leeyahay kooxda Al-Shabaab, isla markaana uu ka dambeeyay dilkii loogu geystay sarkaal ka tirsan Niisa oo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb. sida ay doontaba ha ahaatee, waxa shakiga keenay ayaa ah Farxaan waxa uu ahaa taliyaha ciidanka booliska Banaadir, meesha lagu dilayna waa meel ku dhow Basra oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. yaa bixiyay amarka ah inuu ka howlgalo gobol kale. Howlgalka ay Niisa ka waday magaalada Basra ma ahayn mid qarsoon. Mahad Salaad inta uu ku jiray howlgal ku sheegaasi waxa uu u kala safray magaalooyinka Basra iyo Balcad. Taasi waxaa dheer saacado ka hor qaraxa waxa uu ku safray isla wadadii lagu dilay generaalka. Intaasi oo shaki iyadoo ay jiraan ayaa waxaa soo baxay warar ah in Mahad Salaad uu u joogay magaalada Basra inuu bilaabo wada hadallo dhexmara Al-Shabaab iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Sida ay wararku sheegayaan, dilka loo geystay Farxaan Qaroole ayaa u eg mid uu Mahad Salaad kaga doonayay kalsooni kooxda Al-Shabaab. Mahad Salaad waxa uu u duulay 2 wadan oo khaliijka ah horaantii toddobaadkan si uu u fududeeyo shir heer sare oo dhexmara asaga iyo Al-Shabaab. Qorshaha ayaa ah in Al-Shabaab loogu furo xafiis siyaasi ah magaalada Dooxa, sida kan ay lahaan jirtay ururka Taliban. Ma xasuustaa mar ay siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo ajaanib ay tumayeen durbaanka ah Soomaaliya waxay maraysaa wadadii Afghanistan haddii ciidamada shisheeye ay ka baxaan, la dagaalanka in la dhiso ciidan qaran, dilidda generaalada iyo qof walba oo wadani ah. Marka intaa oo idil dib u xasuusato waxaa kuu soo baxayso in qorshahu yahay in dalka lagu wareejiyo Al-Shabaab sidii Talibanka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu horey u sheegay inay macquul tahay in uu wada hadallo la furo Al-Shabaab, balse maxaa keenay xilligan? Muxuu ka og yahay qorshaha Mahad Salaad iyo Mahad Karatay? Waa su'aalo jawaabahooda oo dhow soo bixi doona.